garyaqaanada difaacaya badda Soomaaliya waxay maanta u tahay maalin kama dambaysa oo ay soo gunaanidi doodaan dood culus oo ay ku talagaleen in u qoorgooyaan damaca Kenya ee badda Soomaaliya waana dood ka durugsanaan doonta dhammaan labadii hadal jeedin ee la soo dhaafay sida ay qabaan dadka sharci yaqaanada Kenya ayaa lahayd maanta sida jadwalku bilowgii u ahaa hadal jeedinta laakiin way diiday 4 maalmood ka hor intii dacwadda aan la bilaabin iyadoo ay ka dhiman tahay furitaanka kulanka inay ka qayb gasho dhowr qodob oo ay cuskatay awgeed in waraaqo muhiim ah ay ka xaday dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan NISA in qareenadeedu aysan weli sarkin oo kala xanimay cudurka safmarka ee COVID-19 in dhaqaale aysan u haysan qareenadeeda ay ku dabarto in qareenadii hore ee ay bedeshay ahaayeen kuwa u shaqeynaya dhinac kale taasoo loo fasiray inay Kenya runta u sheegeen iyo qodobka shanaad oo ah inaan dawlad ka jirin Soomaaliya oo ay warkaasi ka maqleen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida gudahooda ka sokow shantaasi qodob Nairobi waxay dalbatay in 30 daqiiqo ka hor la siiyo maalinta furitaanka ee ku aadaneen 15 bishan laakiin maxkamaddu way diiday dalabka Kenya oo sida la rumaysan yahay ku soo beegantay xilli ay wax kasta dhamaadeen ergada Soomaaliduna ay madasha joogtay mar kale markii ay maxkamadda ICJ hortageen difaacayaasha badda Soomaaliya ayna jeediyeen dood lagu burburiyay sheegashada Kenya laguna tusay garsoorayaasha maxkamadda inay iska indhatirayaan Kenya xaqiiqada runta oo iyagu ay wataan sharciyo u hiilinaya Soomaaliya sida ay doonayso ayay Nairobi codsatay inay samayso inay maanta hortimaado maxkamaddu ay qaadato hadal jeedinteeda sharciyaqaanadu waxay ku fasirayaan dalabka talaabada Kenya u dambeeya inay doonayso inay ka jawaabto eedaha iyo doodaha uga yimid difaacayaasha Soomaaliya yoolkeeduna ah inay bixiso weerar celin ay u arkayso inay muhiim u tahay dhankooda ICJ waxay xalay soo saartay in ay maanta tahay maalinta ay Soomaaliya soo gunaanadi doonto doodeeda sharci ku raadinta badeeda taasoo ka dhigan maxkamaddu ay dalabka Nairobi wax maxkamad jiraan ka soo qaaday oo ay u aragtay mid aan sharciyad ku fadhiin Nairobi dacwadooyinkii u dambeeyay waxay ku ahaayeen dhabarjab weyn oo siyaasadeed falanqeeyaasha xagga sharciguna waxay rumaysan yihiin in Kenya ay ku socotay boob xoolo aysan lahayn ayna qareenadeedu horey ugu sheegeen in waxyaabaha isku difaacaysa Kenya aysan waxba uga goyn karin gudaha xarunta ICJ sidaas awgeed ay tahay inay wada kala maraan qareenada Soomaaliya maanta waxa laga doonayaa ayay leeyihiin khubarada sharcigu inay la yimaadaan doodii ugu dambeysay ugu cuslayd uguna abaabulan bacdama aysan jiri doonin dood kale oo lala soo laaban doono wax kasta oo aad maanta gaftaana ay ka soo muuqan doonaan xukunka u dambeeya ee maxkamaddu ay gaari doonto ma jira racfaan laga qaadan doono go'aanka maxkamadda ma jiri doono dhageysi dambe oo ay maxkamaddu mudaynayso haddii aysan dhicin isbeddello waaweyn marka ay soo xiranto dalabka waqtiga geeska Afrika galabta wixii ka dambeeya waxa la gudbin karaa oo kaliya wixii ay soo dalbadaan garsoorayaasha go'aanka gaarista kiiskan u xilsaaran warbaahinta Kenya waxa ay durba bilowday inay muujiso in deegaanada xeebaha loo dalxiiso ee ku dhow badda Soomaaliya in la kiciyo dadka loona sheegay in Soomaaliya ay duulaan ku tahay oo ay dhul badan oo hadda Kenya leedahay qaadan doonto waxa kamid ah deegaanka Lamu oo kulaalaya aaga Soomaaliya ay doonayso lahaanshaheeda in muranka ay ka saarto habka xadaynta ee Soomaaliya rabta waxa uu ka dhigayaa in Kenya ay heli doonto masaafo kooban oo ay kaga faa'iideysan karto badeeda inta ay xaq u lahayd jamhuuriyadda Soomaaliya oo xadkeedu noqon doono deegaano badan oo ay maanta joogaan ciidanka Kenya durba Nairobi markab dagaal oo ay leedahay ayaa lagu arkay agaarka jasiiradaha Jubbaland qayb ka mid ah yoolka waxa loo arkaa inay tahay dhoolatus iyo kasi walwal ku wajahan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda dad badan ayaa isweydiinaya xilliga uu dhawaaqa weyn ee maxkamaddu soo yeeri doono laakiin afmaalada sharcigu waxay rumaysan yihiin go'aanku qaadan doono 6 ilaa 8 bilood ee nagu soo wajahan taas oo ay hadba weheliso marxaladda go'aan gaarayaasha maxkamadda cadaaladda si weyn ayay Soomaaliya isha ugu haysaa go'aanka imaan doona waxay muujisay inay kalsoonin weyn ku qabto maxkamadda oo ay si weyn ugu abaabul tagtay tan iyo laga soo bilaabo 2014 waxay Soomaaliya dugsanaysay in ay kaliya ku qanacsan tahay maxkamadda cadaaladda ICJ oo ay iska diideen madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore inay wax gorgortana Kenya kala galaan ku haysiga badeena Soomaaliya